Habeen wanaagsan daawadayaal idilkiin oo meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale aan kaga hadli doono natiijadii ka soo baxday kulankii weynaa ee galabta dhex maray kooxaha Horseed iyo Racing ciyaar qaybkeeda horyaalka Soomaaliya ee Premier League. Labadani kooxood ayaa galabta ku wada ciyaaray garoonka Engineer Yariso Stadium ee dhacda degmada Cabdicasiis kulan qaybka horyaalka Soomaaliya ee Premier League. Horseed ayaa ku hardaamisay 4 gool iyo eber naadiga Racing kadib guul weyn ay ka gaartay kooxda Horseed waxay ka dhigan tahay inay hoggaanka sii dheersatay. Kulankan ayaa mid aad u xiiso badan garoonkana wax taageera ma jiro maadaama caabuqa COVID-19 aad looga cabsi qabo taasoo ka dhiganba in Horseed iyadoo taageer la'aan ay galabta uga adkaatay Racing 4 gool iyo eber. Qaybtii koowaad ayaa lagu kulmay 2 iyo eber waxaana kooxda Horseed 2 gool u dhaliyay ciyaaryahanka lagu Bernardo Mugisha sidaas ayaa lagu kulmay markii dib iskugu soo laabtay qaybtii dambe 2 gool gal waxay ka kala xidigeeda kala Farxan Duq oo weerarka iyo Hanad Yare oo booska khadka dhexe ka ciyaar natiijada ciyaarta ayaan ku soo dhamaatay 4 gool iyo eber. Si kastaba naadiga Horseed waxa ay markaa hoggaanka sii dheersatay iyadoo leh 25 dhibcood waxayna hoggaanka ku qaban doontaa ilaa iyo 3 dhibcood ay ku sii ahaan doontaa inkastoo maalintii beri iyo maalintii beri xataa kulan weyn dhici doono oo ku aadan Elman inay ciyaarto marka Horseed markaan hoggaanka iyo sii dheersatay kadib guusha ka gaareen naadiga Racing. Haddaba Horseed sanadkan maxaad u rajeynaysaa aragtidaada qaybta hoose hanaga ilaawa subscribe like share